Assalamu alaikum. Kusoo dhawaada video cusub oo aan uga hadli doono halyeyada feeryahanada modelka iyo gabadha Soomaaliyeed ee sida xoogan u garab istaagto qaxootiga iyo dadka madow u dhaqdhaqaaqda sinaanta dadka kala isirka ah noqotana gabadhii muslimada ahayd ee ugu horeysay dalka Ingiriiska ee ku guuleysatay title-ka Soomaali rag iyo dumar gabadhii u horeysay ku matasha Soomaaliya ciyaaraha Olimbikada haddana u taagan dalkeeda hooyo si ay ugu matasho ciyaaraha Olimbikada ee ka dhacayaan dalka Japan caasimadiisa ee Tokyo 21. Ramlo Ali duniyadan iyo Soomaalida ayaa indhaha ku wada hayaan maadaama ay dunida wax kala iyo qalooc naga filayeen oo aynan filayn in ay jiri karaan dad wadaniyiin ah sida Ramlo ayaa biyogodkoodii ugu galeen. Ramlo Ali waa muwaadinad Soomaaliyeed haysatana dhalashada Ingiriiska. Ramlo waxay ayada iyo familkeedaba ka qaxeen Soomaaliya markii uu dhacay dagaalkii sokeeye iyadoo jirta 2 sano. Ramlo iyo ciidoodaba waxa dagaalka uga geeriyooday walaalkeed oo markaa ahaa 12 jir kaasoo uu ku habsaday gantaal gurigooda hortiisa. sida awgeed familkeeda Ramlo waxay u hayaameen dalka Kenya iyagoo Soomaaliya uga baxeen doon aad u yareed oo xiriir badneed. Ramlo iyo familkeedaba waxa u suura gashay inay u sii dhoofaan Yurubka khaasatan cariga Ingiriiska halkaasoo ay ka heleen ammaan iyo nabadgelyo. Ramlo markii ay jirtay 7 jir markay ahayd 7 jir ay ardayda iskuulkeeda kala kulantay daaciyad ayilnaanteeda awgeed taasoo keentay inay hooyadeed geyso jiimka. walow hooyadeed ay jiimkaas u geysay si ay hilib u dhinto, Ramlo waxay bilowday inay sii balaarsato oo ay ku darsato ciyaarta feerta maadaama ay aragtay isbedel dhanka ayilka ah ayadoo waliba ka qarnayso hooyadeed iyo familkeedaba. bidaar sabiq bay ku gashay Ramlo Ali maalinba maalin ayay u dhibtay guulba guul kale ayay u dhibtay ilaa ay ciyaaraha feerta sidii bunka ay u qabtaan. Ramlo waxa aad u dhiirigeliyay waxay ahayd sida jirkeeda isku bedelay, sida ay u qurxoonaatay markay dhintay miisaanka ilaa ay ka noqotay gabar model ah oo qurux badan oo waliba kasoo muuqata afaafka hore ee jaraa'idada caanka ah oo ay ka mid yihiin British Vogue, The Wall Street Journal, Guardian iyo kuwa kaloo lamid ah far badan iyo modelo badan sida Wonderland Swiss Style Beauty Papers ay matashay halka shirkadda Pantene ay u magacawday safiiradoodii ugu dambeysay. si kastaba Ramlo hiwaayadan cusub ee feerta iyo jirdhiska sidaan u kala kicisay way jeclaatay waliba jacayl xad dhaaf ah ay u qaaday inkastoo ay ka niyajibiyeen familkooda. waxay la dhudhuumataba maalin ayay ka soo muuqatay TV-ga iyadoo u feertamaysa ciyaaraha feerta ee dumarka. inkastoo ay Ramlo codsatay in ciyaartaas la baahin ama live laga dhigin waa meel wax ka soo socday ciyaartii way baahday waxaana TV-ga ka daawaday walaalkeed. hooyadeed markay maqashay gabadheeda in ciyaaraha feerta ah ay ku jirto aad iyo aad ayay uga xumaatay waxaana soo food saarsay walwal tiro badan. sidaa darteed hooyadeed way u diiday Ramlo inay sii wadato ciyaarahan taasoo keentay in ay marna joojiso marna bilowdo. inkastoo ugu dambeyntii hooyadeed u ogolaatay iyadoo waliba mar ay ciyaar dalka Denmark ku lahayd u duceynaysay ilaa gabadheeda guusha ka soo hanato. waalidka Ramlo Ali ma aha waalid iska caadi ah, waa waalid jecel dalkooda sababtoo ah iyagoo dal aan dalkoodii ahayn jooga ayay ubadkoodii dal jacayl bareen. markay yarayd Ramlo waxay uga sheekayn jireen dalkooda hooyo inaysan ku bedelan lahayn dal kale kaliya hadduu ammaan lahaan lahaa. muwaadinimada ay ubadkooda ku koriyeen maanta waxaa hoos harsanayso Soomaali oo idil oo waxaa maanta ciyaaraha Olimbikada nagu matalayso gabar ku kortay dal kale waliba waliba 2 jir uga tagtay dalkeedii waliba ayadoo matali karta dalka deganaanshaha siiyey ee Ingiriiska oo ay ka heli karto maal iyo duun lacageed oo fara badan ayaa waxay jeclaystay inay matasho dalkeeda hooyo. halkaas waxaan ka fahmi karnaa waalidkaaga inuu ugu horeeyo qofka ku jeclaysiin karo wadankaaga qof walbo guul gaarana
waxaa jira qof daaha gadaashiisa ku jira oo barataara qofka muuqda sida hooyada ramlo cali oo kale. dhabtii gabadhan geesiyada ah dhib badan ay u soo martay inay soo gaarto heerka maanta ay taagan tahay oo ah inay matasho dalkeeda hooyo iyadoo weliba aysan jirin dowlad si buuxda u soo gardaadisay ama soo garab qabatay. mar ay waraysi bixisay ayay sheegtay inay juhdi badan bixisay gelitaanka cayaaraha olombikada iyadoon weliba kaalmo dhaqaale aan ka helin dalkeeda hooyo. ramlo cali waxay dhiirigelin taageero iyo tababarba ka heshay saygeeda Richard Moore oo u dhashay dalka Ingiriiska. ramlo cali waxay hadda haysataa rikoodh ah 3-0 oo professional. guntii iyo gabagabadii waxaanu sugnaaba waa guusha ay noo soo hoyin doonto ramlo cali oo hadda sidaan aan bar ahaan sii haysano maadaama aan helnay qof na matalo iyo waxaa kaloo sugnaaba buugeeda la magac baxay Not Without a Fight, dagaal la-aantiis wax jira ma leh, oo la micno ah dadaal marka hore guul iyo guul daraba waa la joogay. buugaas oo soo bixi doono bisha 9 2021 waxayna uga hadli doontaa 10 dagaal ee ugu muhiimsanaa nolosheeda. aan soo duceyno ramlo cali iyo inta kale ka qayb qaadanayaan ciyaaraha olombikada Tokyo 2020 ee Soomaalida insha Allah. ciyaartoyda kale waxaan insha Allah ka sameyn doonaa video kale insha Allah. asxaabta videogaas like subscribe ka iyo commentiga idinka waaye taageero usoo muujiyo gabadhaas. Bye bye.